howlgal ay sameeyeen ciidamada xoogagga Soomaaliya oo lagula wareegay dhowr degmo oo dhaca galbeedka magaalada Beledweyne isla markaana ciidamadu ay ka sameeyeen deegaanka Luuqjeelow Baar iyo Wardhabeele iyadoo halkaasi ay ka irdhadeen maleeshiyaadkii ka tirsanaa kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. saraakiisha ciidamada qalabka sida ee maamulka Hiiraan kan degmada Beledweyne ayaa qayb ka ahaa mas'uuliyiintii howlgalkan hogaaminayay. waxaa dhanka kale qayb ka qaatay dadka deegaanka degan oo sheegay inay rabaan inay deegaankooda kala dagaalamaan kooxaha nabadiidka. waxaan howlgal ballaaran oo lagula dirirayo nimanka nabadiidka aan ka wadnay galbeedka magaalada Beledweyne tuulooyinka ku xeeran بريهان بمشاس أيان هولجل كودني ساد أكتهم بالدجال وين أو دلاه يرادو كردنا نبديتك أيا بريهان كسعود قبل كهيران أنا جنا كمهير الدونة لما كان نبديتك على الشباب لول بدن ما هذا لا يمكن أن كحريني عندنا واقصي دبجرنا شعبك عن شيءنا xilligii argagixisada laga xoreynayay ayaa la gaaray dawladdu hala shaqeeyaano shacabka looma jeedo iyaga wax raba ma laha iyo qaxin iyo cararin askarta ay ka baqanin soo dhaweeyano waxaan leenahay dawladdiina soo dhaweeyo argagixisada waa isdeyseen waa kala tagteen hadii insha Allah hadii la yiraahdo howlgalka waa bilowday hadii diyaarada yihiin hadii dhulka tahay wax walba oo zaanad military ah waa la hayaa insha Allah hadii la yiraahdo argagixisada waa iska baxaysaa waqtigeedii waa soo qaadatay. gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Cabdulaahi Maade ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay mid galbeedka gobolka Hiiraan lagaga safeynayo Al-Shabaab. maalmaha basaale socotiin maamulka gobolka Hiiraan wuxuu ku jiray dagaal isagoo kaashanaya ciidamada macawisleyda militariga Soomaaliya booliiska dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogan garab ay maaragtay ay iskaga ahayeen taas. haddana maanta waxaan soo dhaqaaqnay ciidankan macawisleydan gudmud soo sameynay oo maaragtay howlgaladii ay meelahan ka wadeen aadan ugu mahad celinaa. anakan waa garab taaganahay saan hadda ugu imaadnay insha Allah dib uma noqon doono oo maaragtay waa la joogi doonaa garabkoodaan nahay. shabaab marka horeba dagaal waayihii dambe gobolka Hiiraan wuxuu ku jiray guud ahaan xaalad dagaal oo nimankan cadawga argixisada Al-Shabaab lagu xoreynayo deegaanada ee kaga soo yihiin gobolka. waxaan hadda maanta Ilaahay mahadiisa inaan joogno galbeedka Beledweyne deegaanadii Saaki nimanka cadawga ah ee cagta la mariyay ee laga qabtay Baar iyo Luuqjeelow iyo Raangaabo ilaa deegaanada hoos yimaado sida xildhibaanka uu sheegay deegaanadan hoostaga degmada Buuqa Qablay iyo degmada Ceel Cali inta u dhaxaysay magaalada degmadan Beledweyne aan joogno ayaa cadawga insha Allah howlgallada ku wajahan yahay waan laga xoreyn doonaa mana looga soo xari doono inta deegaanada galbeedka ee kaga sugu yihiin iyo guud ahaan gobolka Hiiraan oo dhan. maamulka hadda joogo iyo saraakiisha halkan howlgal ka wadan aan ugu nimaan inaan ugu dhiirigelino dadka deegaanka ay ayagana iskaashadaan. nimankan cadawga arxan ma lahan sumad ma yaqaanaan dad yani gaar ah bartilmaameed uma ahan guud ahaan dadka reer Hiiraan oo dhan iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan